بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku tusi rabaa markaan sidee loo soo furo SPSS-ka computer-ka ku save gareysay oo computer-kaaga bartay muxuuna ka kooban yahay markuu soo kaco SPSS-kii noocu eg yahay window-ga uu leeyahay muxuu ka kooban yahay marka hore waxaan ku dhufanayaa start menu kadibna markaan ku dhufto start menu waxaan ku dhufanayaa SPSS halkuu saaran yahay haddaan doonana intuu saaran yahay waxaan rabaa markaan inta saaran inaan ku dhufto waxaan siinayaa hal click ama laba click waxay ku xiran tahay markaa actionka uu bartay computer-kaaga hadda hal click aan ku dhuftay waxaa ii soo kici doona hal mar oo keliya marka qaarkood markuu desktop saaran yahay waxaa lagu dhufan karaa iconka desktop saaran yahay laba click hadda hal click ayaan siiyey automatic wuxuu ku maqan yahay inuu soo kaco kadibna wuxuu soo saarayaa window barkiisii iyo wuxuu ka kooban yahay markuu soo kacayo marka waxaa soo arki doontaa oo keliya laba window iyo hal box labada window waxaa lagu kala magacaabaa output viewer iyo data editor data editor-ka waa kan lagu shaqeeyo ee data lagu xariyo output viewer-kana waa kan wax kuu soo saari doona oo wixii aad tiraahdo dataas analyze garee automatic wuxuu saarayaa output viewer mid saddexaad aa jira waa box yar oo uu ku bixin doono open box laakiin window kale ka duwan ayaa jira oo labadaas ahayn waxaa lagu magacaabaa kan syntax viewer ayaa la yiraahdaa waa arki doonaa wuxuu soo saaray markaa windowskii installation kicitaankiisii koowaad waa soo kacay marka sidaa idin muuqata kan box waxaa lagu magacaabaa open box boxiga wixii hore kuu save garaysan ayuu kuu furaya keliya wax kale ma qaabilsana hadhow markii wixii aad data hor u xaraysay intay ku jiraan aad rabta inaad kala baxda ayaa kala la siiyaa mar raba marka inaad isaga soo furo waa iska xaraya waxaa in furmay markaa waxyaaba fara badan ani marka waxaan ka rabaa inaan kuu sheego kan hadda aan taaganahay waxaa lagu magacaabaa data SPSS data editor waxaa laga yaabaa inaadan arkin aan soo dhaweeyo SPSS data editor aa lahaa taas waa kan lagu shaqeeya kan labaadee ka ag muuqda markasta markuu isaga soo baxana waxaa lagu magacaabaa output SPSS viewer ama output SPSS viewer kanna wuxuu soo bandhigaa markii wixii lagu xareeyay markastoo data aad dirto kan ayuu kasoo muujiyaa waxyaaba kala furfuran waxyaaba kala iska xiraynaa waxyaabahan kala furfuran dhan waa xirayaa waxyaabaha kala dhan furfuran waa xirayaa si marka hawsha noogu fududaato inaan guda geli karno waxaa ii furan marka labada xabo kan waxaan u bixinay data editor-ka kan lagu shaqeeya ugu muhiimsanna waa kan labaad ee jira waxaan u bixinay output viewer haddaa maqasho marka SBS 3 window ku shaqeeya 3 window waa soo furmaysa kow waa kan data editor-ka kan waa SBS viewer hal xaba iga maqan halka xabna waa soo furaya waxaan ku dhufanaa file markaan ku dhufto file waxaan dooranayaa new sorry walaasha jira file waxaan ku dhufanayaa new waxaa kaloo jira markaa new ku dhufto syntax viewer waxay dhahaan waa ka duwan yahay frame window saddexaad oo SBS ku shaqeeya saddexdaas window hadda aan soo kala shiday laba automatic oo soo shidantay midkan hadda aan soo shiday saddexdaas ayuu ayay ka kooban yahay haddaa maqasho SPSS-ka windowskiisa lagu shaqeeyo kan marka waxaa isticmaala nimanka IT-da ah wuxuuna ku fiican yahay coding-ka haddaan bis uu ka samaysan yahay coding-na ku fiican yahay
laakiin kan lagu shaqeeyo u badan waa kan. Labadan kanna wuxuu yahay soo muujiye. Kanna marka waxaa loo baahan yahay qofkii SBS code aad ugu shaqeyn yaqaana ayaa isticmaalaya. Marka aniga kaas waxaan isticmaali doonaa kan kore oo aan kuu sharaxi doonaa. Waxay ka samaysan yihiin markaa u noqoto markaa windowada caadi waxay ka samaysnaayeen. oo halkaa kor waxaa lagu magacaabaa title bar, halkan waxaa lagu magacaabaa menu bar, halkan waxaa lagu magacaabaa icon bar, halkan waxaa la dhahaa sheet ama waxay dhahaan excel sheet, ama waxaa u taqaanaa waa tablekii caadiga ahaa. wuxuu ka samaysan marka wuxuu ka samaysan yahay laba sub window. windowgan wuxuu kasii samaysan yahay oo aan joogo data editorka laba sub window. hadda waxaan taaganahay data view. kor markaan data view taaganahay kor waxaa ku qormaysa var 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 ilaa dhamaystiran. laakiin markaan joogo variable view waxaa soo baxaya magac dhamaystiran oo waxaa imaanaya magacyo caadi u qoran ayaa imaanaya. hadda waxaan taaganahay midabka jaalaha oo ii fulan variable view. kor waxaa ii saaran name tape width decimal lab values missing column aligned iyo meeshaas. laakiin markaan joogo data view waxaa fuulaysa kor var var variable 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 ka wada oo wixii inta aan soo geliyo wuxuu yaqaanaa variables. wixii inta aan soo gelin markii waxay fuuli doonaa halkaa kore magac waxay qaadanayaan markaa variable oo laakiin magacii aan soo qoray ayay ku qormi doonaa. hadda laakiin waxaa igu qoran var var, kan waxaa igu qoran wixii aan soo gelin lahaa. variable inta ku abuuraya xaggaasuu kasoo muuqan doonaa. jawaabaha dhow intaa ku qori doonaa, su'aalaha iyo possible answer intaa ku qori doonaa. waa ka sheekeyn doonaa si looga shaqeeyo. markii aan live aan diro wuxuu ii soo muujinaa data inta, wuxuu iigu taxaa markas ay kala sarreeyaan. hadhow marka waxaa laga yaabaa daatada badan tahay inta wuxuu ii taxaya table content ahaan uu taxaya meeshii aan ka rabo marka uu dhaqso geenaya analysis u fiiriyo. kan marka waxaa lagu magacaabaa output view. markaad rabto inaad windows soo furtana sida caadiga loo maraa waxaa lagu dhuftaa file kadib waxaa la tagaa open. isla markii wuxuu ku geenaa markaa open meeshii waxay window aad soo furi karto ayuu ku geenayaa. waa kana marka open ku dhufto automatic marka noocaan soo furay data editorkii syntax output keen soo fur rabaa. marka ku sii dhufto box open oo soo saaray sidii caadi taqaaneen wuxuu soo muujinaa box editor caadiga ah. inta noogu jeedo insha Allah. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.